komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland ayaa maanta 70 ruux oo ka kala socday ururada haweenka bulshada salaadiin cuqaal culimaa diin ugu qabtay xarunta gobolka Togdheer tababarkan oo ku saabsan wacyigelinta bulshada habkii hanaanka maamul wanaaga waxaana tababarkan ay qabteen komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ugu horeyntiiba furitaankii ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco iyo xogayaha fulinta gobolka Togdheer barnaamijkan ugu baahan علي حتى لقوا على سوق المعارضة لقولن ما حد يقولي حلقة وين بدنا نحمك هنا عام كانوا وعدي واتصالين وواحد قرن اسمه كوشي قوي لو أقدر تقول لي شركة وهب كيه هنانك معمول هناك سيدا بورفيكم مغاد هرونا ميثرا هلكن uga dhacay imkana waa kii labaad kaaseen ka wada sheekaysanaa ka wada doona hadalkiina dadkana hadalka wala siin doona idaan ugu imkayn furitaanka iyo soo dhaweyntu baan leeyahay xogayaha komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa mahad ayaa hoosta uga xariiqay 70kii ruuxeed ka soo qayb galay tababarkani ahmiyada ay maamul wanaag u leedahay bulshada ku dhaqan gobolkani Togdheer كان waxaa horeeyay mid hore oo abril halkan soo nimid wajiga koowaad wuxuu iftiiminayay ahmiyada ay leedahay maamulnimada ama kunada maamulka guud maanta waxaan ku soo ladnay musuqmaasuqa ay shacbigu ay gacantooda ku abuuraan أنا مسؤولية هلك هياري أنا إيجو كل جود أموري وقيمه هذي كل الدوائر وصدق قيمه أنا كسر قانون يوحي يتكلفيس كل بعض والدنيا ده وفقداري والدنيا تشري dambeyntiina waxaa tababarkani loo qabtay bulshada gobolka Togdheer soo afmeeray gudoomiyaha komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland wacyigelinta aan leenahay markaa waxa weeye bulshooyinkan u sameeynaa qaybaheeda kala duwan waxay daaran tahay ahamiyada ay bulshadu leedahay oo bulshadu waa dadkii loo shaqeynayay ee soo doortay ama soo xushay nidaamkii doonaa ma ku keenaan dadka maanta oo haya hawsha haddii gola deegaan tahay haddii gola baarlamaan tahay iyo haddii xukuumad tahay marka inay gartaan mowqifkooda inay gartaan awoodooda inay gartaan xilkooda ayay daaran tahay kaalinta ay ku leeyihiin inay fahmaan casharkan maanta aanu bixinaynaa wuxuu daba socdaa cashar hore oo kan ka horreeyey oo aanu qabanay haddii alla ku roon yahay muddo safarkaygii hore aanu ku nimid dhammaan gobollada aanu ka soo wada qabanay tirada markaa hore aan u yeelanay 40 qof bay dhamayd doorkan ilaa 70 maanu ka dhignay waxaan doonaynaa in si tartiiba ujeedadoodu ma aha inaan idinku waxay sheegno waxa weeye wixii aan idin sheegnay maadaama aad tihiin dadkii aan bulshada ka soo xornay haddii cuqaal yihiin haddii salaadiin yihiin haddii ay yihiin ururada haweenkaba inay gaarsiiyaan fariintan iyada ee maamul wanaag iyo kaalinta ay ku leedahay bulshadu inay gaarsiiyaan dacidii ay ka yimaadeen haddii cuqaal yihiin ay reer gaarsiiyaan هذا علماء هاي يبغى بكبل عليه هنيو والأمة يودن جالسية طبعا ده هون كنا والله فلا وروح حوالي والبويس يقولون جالسية وبرواقة محمد شبكة عالمي قادوين نيوز مقالة برعو.